بسم الله نحمده ونصلي على رسول الكريم. السلام عليكم ولا ليال ومركلة iyo walaalkiin maxamed xasan insha allah tacaala cashirkan waa cashirkii inoogu horreeyey ay idin soo gudbinayso sam aka ama somali academy. insha allahu tacaala cashirkan waxaan ku fiiri doonaa waxa la yidhahda star screen, midaasoo totally windows 8 ku cusub. windowsyadii hore ama vershinadii hore oo microsoft windows maysalan sida windows 7 ama windows xp absolutely way ku cusub tahay. waa new brain, waa wax cusub oo hadda soo ikhtiraaday ee windows microsoft kusoo dartay windows. wallahi haddii aad barato si loo isticmaalana, oh man, is very useful. markaad mathalan hadda waxaan I assume the first time you open your laptop, markii kugu horeyso laptopkaaga fudho windows 8 ku install garaysay, where is my desktop? war desktopkii meeye xaggaan magacaygan ka arkaa, xaggaan desktopkii meeye, xagga haddaa fiirisa gacantiida bidix desktopka yaal, click ku sii. wow, oh xaggaan haddaan desktopka imin. laakiin we have another little bit problem, xoogaa dhib kaloo yaraa jiro. waa start menu, xagga haddaa fiiris start button ma ku yaalo, xaguu ka baxay? hadda click ku siisto start screen ku celin. yeah. marka haddaan start screen kusoo noqono, waxayna haddaan ka hadalno start screen, xaggan waxaa noo yaalo programyadii kuwaasoo by default ku install garaysan computerkaaga. dhinaca midigta ah 3 program yaal sida google chrome ama mozilla, waa kuwa adig ku shubatay. xaggan koro magaca ama qofka computer iskale by username, hadda aniga maxamed xasan oo kale. xaggan hadda wax raadinayso, xaggan hoose waxaa aragnaa in apps installing, inta waxaa ka arkaysaa softwarada aad ku shubatay computerkaaga. hadda haddaan click ku siiyo, wow, xaggan waxaa soo baxay softwarada aan ku shubtay computerkayga. hadda مثلا haddaan aan fiiriso a by xarfu ku siina a b c, xagga haddaa aado waa softwarada computerkaada ku jiro o dhan. laga yaaba inaysan islahayn, of course inay islahayna laga yaaba, maxaa aniga waxaan anaa ku shubtay, adiga qaarkeed inay ku shubataa laga yaaba. see lagu noqdaa calaamadaas yaroo korsaayay kali ku sii windows. haddii aad rabto inaad program furto, mathalan hadda program aan furo meeshaan, mathalan haddii aan furo music waxaan baa soo baxaya dhaxa. laakiin haddii aad fiiriso music meeshaan ma laha meeshii laga xirayay. hadda laga yaabay qaarkood inayn lahayn meeshii laga xiraya. haddaasaan dhahdo war xaggee laga xiraa, laba way mida u xiri kartaa. inaad mouska kor u qaado oo xaggaa sare aa geyso, waxaan kusoo baxaya meeshii laga xiri lahaa. ama inaad markaad kor geysa aad soo qabato ilaa hoos ka tegay aad hayso, iska diidaysa markaa wuu xidhmay. hadda mathalan see u tagaa marka, mathalan haddii aan furo music, haddana where is my start screen ama where is my desktop, xageen ka tagaa? waxaan midda ugu fudoo laga tegi karo waxaa weeyaan windows. markaa keyboardka fiiriso windows logo wax la yidhaaha meesha ku yaal, inaad dhag siiso iyo tab, desktopka ku keenaa. windows loga iyo tab musica kugu celinaa. windows I think qof walba inuu fahmo. windows logo waxaa weeyaan calaamada yar oo keyboardka meesha fuusha, dhag ku sii iyo tab, desktopka ku keenaa. let's go back. haddii aan rabno inaan programyadii xidhno, oo haddii aan rabno inaan programyadii waddo kale loogu tagaa jirto, mathalan haddii aan start menu aan saas, haddii aan start menu meesha ku eli jirtay, haddii aan saas kor saaro ama meesha start screen laga aado, haddii aan kor wax yar u baxo ama markaan saan dhaho, haddii program furan yahay waxaan arki programkii furnaa, clickan ku siin karaa marka. ama waxaan samayn karaa inaan xiro, haddii aan rabo inaan programkii xiro, windows iyo tab looga hoos soo deji, hoosgey, khalaas. hay marka waxaan rabaa qaarkiin inay kala duwanaataa laga yaaba, waxaan meeshaan ii fuulo iyo wax adinka idii fuulo. marka haddii aad rabtid mathalan ina kala habay sidoo kale, mathalan kanoo kale hadda, haddii aan kanoo kale hadda store sizekiis waa weyn, waxaan rabaa inaan yareeyo, right click ku sii size dheh. maxaa rabtaa inay yareysid? small maa kala tahay, small medium maa rabtaa inay ka dhigtid medium, mid dhexaade, wide mid xogaa roo, large ama mid aad u weyn sidoo haddii oo kale. mathal medium aan ka dhigaa, dhexdhexaad ma ogtaa medium. mayo waxaan rabaa inaan xogaa yaro weynaysto, ma arkayo wide xogaa ku weynaana, ma aragtaa? taas uba bedeli kartaa.
marka haddii aad rabto marka haddii aan fiirino windows afarta dhinac oo shaashadda way shaqayn mathalan haddii hadda dhinacan midigtoo kale haddii aan fiirino wax kaaga soo bax waxaa la yidhaha terms icono yaraa meeshaan soo muuqanayo adiga insha allahu tacala waan ka hadli doonaa mathalan haddii aragto inuu wax raadisoo kale kligaa ku siinaysaa xagga se wax raadileeda ku tusaa meesha wax raadinaysa ku qoraa meeshii windows 7 markaa isticmaalaysa start menu dhag siine hal yar wax ku qoraysa windows 8 xoogo ka yaro dib marka wax raadinaysa windows 8 waxaa imaanaysaa xaggan muuska saas maahan xaggan sare geeskaasa geynay xooga yara hoos u jiidaya marka waa kusoo baxay waxaa kaloo muhiim meeshan fiiri saacadu kaaga soo saaray xaggan dhinacan haddaa fiiriso hadda saacadda waxa weeyaan 10 iyo 12 ama 4 saac iyo 12 qof kasta u yaqaan meesha start menu geynaa meeshaan device meesha setting marka computerka daminayso say u daminaysaa xaggana laga daminaa malaga qaarkii inay ku wareera warsa u damiyaa computerka meesha start menu haddaa dhow kusii wow shaashad kale ii keeni waa meesha laga daminay miyey haddaa rabto inay daminaysa xaggaan tag setting gal allahuma salli maxamed power then shutdown update uga rabaa laakiin shutdown keliya aad keli kusii kartaa xaggaan windows 8 ayadana oo ka shaqayn mathalan haddii aad xaggaan tagto wuxuu isku bedelayaa gacan oo waa yareysan kartaa mathalan haddii aan rabo inaan half ka dhigo shaashadda halfaan ka dhigi karaa xaggaan gey keli ku dheh soo jiid dhinacan kale half kale haddaan rabo inaan gacantan ka mid dhinaca kale beexda ka dhigto half kale haddaan rabo inaan weynayo soo jiid dhexda ken iska sii daa uu weynaan dhinacan kale oo bidixda ah waataan idiin sheegay waxaa kasoo furmo softwarada markaas kacsan mathalan haddii hadda aan kaxay people softwarekan waxaan isku qabanayaa looga oo windows looga iyo tab soo desktopka ii geeyo dhinacan kale oo bidixda waxaa ka shaqaynayo softwareadii markaa ku furnaay oo windows ku install garaysnaay click ku sii hadda marka desktopka siin ku aadaa mathalan haddii aan control tab aan dhaho haddaan isku qabto alta plus tab muxuu ku siinayaa programyada kuu furan marka desktopka saas desktopka imaanaysaa marka iyo waxyaaba badana insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala I hope inay intaas maanta ku filan tahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu